بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكو سلام ورالكي زكريا يا منصر. بعد السلام waxaan rabaa walaalayaal inaan ila wadaago qiso yar oo cajiib ah oo aniga igu dhacday, taasoo raba inaan dadka Soomaaliyeed uga digo halista ay leedahay saliidda. Bismillaah, magacayga waa Xasan Saciid Cali oo jooga magaalada Muqdisho. Muddo haatan laga joogo 2 sano ayaa waxaan isticmaalay saliiddaas oo ah saliidda bidaarta daaweyso, taasoo badanaa dhalinta Soomaaliyeed ay ka cabanayaan xagga bidaarta. Waxaa dhacday in saliiddii aan isticmaalay muddo kooban oo gaaraysa 5 bilood. Muddo 5 bilood markaan isticmaalay saliidda, waxaan isku arkay xagga dareenka ama ragnimada oo sii yaraanaysa. Saliiddan waagaan isticmaalayay waxaa la sheegay in wax saameyn aysan lahayn, taas ay ugu kaliftay inaan ku dhiirado inaan tinteeda dib u soo celsho, iyagana igu dhiirigeliyeen. Waxayna ii sheegeen inay tahay saliid u fiican timaha bidaarta leh, ayna daaweynayso bidaarta muddo kooban. Sidaa darteed waxaa lii tusay muuqaalo laga soo duubay dhalinyaro ay ku sheegayaan inuu yahay dad waagooda hore bidaar lahaay, kadibna isu beddelay muddo kooban, taasoo sababtay saliiddan ay iyaga isticmaalayaan. Kadib markaan problemkan isku arkay ayaa waxaa ila taliyay abtigay, wuxuuna igu yiri waxaad aadaa caafimaad dalka dibadiisa ah. Kadib waxaan aaday dalka India, waanu aaday caafimaad. Markii aan u tagay dalka India, magaalo la yiraahdo Mumbai, aan isbitaalka ka tagay. Dhakhtarkii oo qaabilsanaa qaybta dareemaha wuxuu ii sheegay in arrintan ay tahay wax problemkeeda leh. Wuxuuna iga wareystay qaabkaan ku bilaabay iyo soo igu dhacday arrintan. Kadib sharaxaad dheer waxaan ugu sheekayay saliiddan in lii ammaanay, dhalinyarada Soomaaliyeedna dhammaantood isticmaalayaan, anigana aan qayb ka ahay dadka xanuunkaas. Dadka qaar walow aysan sheegi karin xanuunkooda, balse aniga waxaan ku dhiirraday inaan xanuunkayga u sheegto dhakhtarka. Dhakhtarka markaa arrinteeda u sheegtay, wuxuu ii sheegay in arrintan oo daawo loo heli karo, sababtoo ah waxaan imid xilli fiican oo aan u soo bandhigay dhibaatada iga haysto arrintan. Kadib sheeko dheer anigii doctorkan dhex martay ayaa waxay u dhacaysay sidaan: qaabkee u isticmaashaa, ma waxaa isticmaasha kaniini baa, mise waa saliid, mise waa sharoobo, mise waa cirbad la isduraayo. waxyaabo noocaas ayuu is weydiiyey dhakhtarka. Anigana waxaan iri waxaan isticmaalay kaniini ma ahan, waxaan isticmaalay saliid oo loo yaqaan Neo Hair. Saliiddaas oo loo isticmaalo xagga bidaarta, waxayna leedahay inay timahaaga dib kugu soo celiso oo muddo kooban kugu dambeysay. Sidaa darteed dhakhtarkii saliiddii ayaan u sheegay, waa la google gareeyay, waxaa la raadiyey culayska ama saameynta ay leedahay saliiddan. Saliiddii markii aan raadiyey google-ka oo arkay oo la yaabay, aniga naftarkeyga google-ka wuxuu iga tusay dhakhtarka in xanuunkan saliiddan xanuunkeeda uu yahay markii aad u isticmaasho xagga timaha, adigoo eegaya bilicda quruxda timahaaga, ayaa haddana meesha waxaa ku qoran oo dareenka oo bulshada ay soo celinayaan xagga comment-yada aan fiirinay aniga dhakhtarka. Waxaa soo baxday in
timahaagi intaa raadinayso oo ku dhumayo xagga ragnimadaada muddo sanado kadibna ee dib kugu soo laabanayaan awooddaadii ragnimadii hore aa lahayd. marka arrintaas kadib dhakhtarkan dhex martay oo ii sheegay wuxuu ii soo qoray daawooyin. alxamdulilah daawooyinkiyaa isticmaalay, ilaahayaa talada saartay. dan alxamdulilah hadda tartiib ayay igu soo laabanaysaa awooddeedii. waxaan kusoo laabtay muddo hadda 2 bil laga joogo magaalada xamar. weli waxaan arkayaa in shirkado soomaaliyeed ama ganacsato ay weli wadaan hawshii, oo dadka qaarna ay ka cabanayaan, dadka qaarna ay usii ordayaan saliidda. walow dadka loo sheegayo in hebel iyo hebel oo bidaar lahaa jiray tima yeeshay. qof walba wuxuu ku dhiiranayaa inuu timihii oo qofkaas saaxiibkiisa lahaa ama walaalkiisa ama qofkii qaraabada ahaayeen oo asina ku dhiirado inuu timihii kale u raadiyo, oo weliba ku dhiirado inuu saliidda raadiyo. mana yaqaano dhibaatada iyo saameynta ay u gey karto. waa qarashkaaga ama lacagtaada ama maskaxdaada iyo aqligaada, waa adigoo u doontay, qarashna ku baxshay, lugahaadana ku tegay, oo berina kaaga soo laabto saameyn mustaqbalkaaga dhibaato weyn ku yeelan doonto. weliba waxaad ugu daran wax kale ma ahan, waa xagga ragnimada. waxayna sababtaa in dadka qaar la ii sheegay, aan wareystay, in dadka qaar ee ilaa hadda xaasaskooda ka haajireen. yar la ii sheegay xaaskiisa oo qaar oo kala tagaa maqlay, midna waxaa lahay muddo kooban ay fasaxay kala qaateenba. asaa ka codsaday inuu fasax qaato, waa isdaaweyn ama waa isbaar waxyaaba noocaas fili. haddana ma ogaan dadka meesha laga soo weeraray. saliiddina way isticmaalayaan, xanuunkoodna wuu hayaa. mana u malayaan saliidda inay saameyn leedahay. dadka intooda badan lama socdaan, kuwa gadaalay ka ogaanayaan sheekada markay magaalada dhex galaan. sidaa darteed walaalayaal, shacabka soomaaliyeed iyo wariyaashiina waxaan rabaa inaad ugu faa'iidaysaan shacabkan. intii ku dhacday way ku dhacday. waxaan rajeynayaa haddii allahu talada saartaan ay caafimaad raadiyaan, dalka gudihiisa ama dibaddiisaba ay heli karaan. saa darteed waxaan rabaa in kuwa hadda isticmaalaya ay horta joojiyaan gebi ahaanba. wuxuu u jooga wax weyn ma aha, waa lacag gaaraysa 30 ilaa 40 inta u dhaxaysa ah. marka $40 ha ku biimeynin in awooddaada ay ku yaraato. mana raba in qoyska Soomaaliyeed burburo ama dhalin Soomaaliyeed sharaf darro ku dhacdo. saa darteed alxamdulilah aniga dadaal dheeraad aan soo biyay kadib waxay waa ii soo laabteen. haddana alxamdulilah waan ku faraxsanahay. saas la mid ah waxaan arkay dhalinyaro badan oo weli raadinaya saliidan, kuwana shirkada qaarna ay ku dhiiradana inay soo bandhigaan saliidan waxa ay leedahay wanaageeda. ilaa hadda ma arkin kambani ama shirkad oo saliidan ka sheegaya saameynteeda. weli ma arka. ilaa qof walba ganacsigiisa ayuu fiirsanaya, dhibaatada ay leedahay mana u sheegayaan. dadka ay ka iibanayaan kastamarkooda waxay doonayaan oo kaliya inay helaan xoogaa yaro oo wax la yiraahdo inay faa'iido ka helaan. marka faa'iido raadis ha noqonina, dadkiinana dhibaato horseedina. waxaan ka codsanayaa wasaaradda caafimaadka iyo dadka arrimaha quseeya ee maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan cid walba mas'uul ka saaran xagga caafimaadka in saliidan gabi ahaanba laga joojiyo wadanka Soomaaliyeed. waa codsi aan u jeedinayo maamulka sare ee dowladda. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu digayaa iyagana inay ku kabsoomaan inay raadiyaan saliidan, sababtoo ah saameyn ayay ku yeelanaysaa noloshooda dambe iyo mid horeba. waxaan rajeynayaa haddii aad dhageystaan maqalkeyga inaad ka waantoodaan oo iska dhaaftaan saliidan. sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed qaarna laga yaabo inay og yihiin oo ku soo laabanaya kommentiyo ama cabashooyinka goban aysan weli ogeyn hadda ku dhiiranayaan ee magaalooyinka qaar ka keenayaan. sidaa darteed iyagana waxaan ka codsanayaa inay iska joojiyaan saliidan isticmaalkeeda dadka ka iibinayaan, inay raadiyaan xal kale. waxaan ka codsanayaa saliidda kaliya ma aha, waxaa kaloo la sheegay kaniini la isticmaalo oo asina dinta soo bixinay in saliiddaas iyagana iyo kaniinigaas labadaba la joojiyo. waxaan ka codsanayaa
dadka isbitaalada furanaya oo leeyihiin tintaa bidaarka soo bixinaa saliid iyo saliid iyo waxaan ku siinaynaa kaniini inay iska joojiyaan. Shacabka Soomaaliyeed waa mahadsan yihiin. Zakariya Munasar sidoo kale aad baan idinkaga mahadcelinayaa shaqada aad u haysaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan rajeynayaa in arrintan aan soo gudbiyo aad bulshada la wadaagtaan. Saas darteedna waxaan rajeynayaa in arrintan ay noqoto arrin dhaqan gasho oo bulshada Soomaaliyeedna iska ilaaliyaan. Hadda laga bilaabo waxaan rajeynayaa insha Allah in qof walba xanuunkaas gaaray inuu insha Allah dib ugu soo celi doono noloshiisa hore Allah subxaanahu wa tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin insha Allah.